soo dhawaada asxaabta qaaliga meel walba joogtaan iyo waqti walba ay idin tahay. Waxaan sii wadi doonaa artikalada bistinta article iyo unbistinta article, kuwa qeexan iyo kuwa qeexaneen. Hore waxaan u soo hadalnay artikalka nominative-ka ayaan ka soo hadalnay. Nominative-ka aan soo hadalnay. Maantana waxaan baranaynaa waxa la yiraahdaa accusative. Wuxuu yahay accusative-ka. Nominative-ka waxaan soo sheegnay inuu magac yahay oo horgala yahay, subject uu yahay. Accusative-kuna waa direct object. Sidaan la soconno, accusative-ka wuxuu ka mid yahay 4 marxaladood ee ugu waaweyn ee naxwaha dalka Jarmalka. Waa maxay accusative? Accusative-ka wuxuu sameeyaa oo lagu ogaadaa ficilka qofka uu sameynaya. Ficilka ayuu ku dhacaa, qofka wax buu sameynaa. Nominative-kan soo hadalnay oo subject-ga ah, verb-kiya wax sameynaa. Waxa qofka lagu sameynaa waa marka sameeyahaas direct object ee ku dhaca, taasoo kale waa tusaale. Okay, das Kind sieht einen Hund. Cunuga wuxuu arkay einen Hund ayaa direct objectiga wax ku dhaca. Das Kindna waxaa subject. Markaan usoo gudubno nominative-ka aan soo baranay oo ahaa masculine markuu yahay der, markuu yahay feminine die, markuu yahay neutralna das, markii uu yahay pluralna die. Accusative-ka marka la joogo waxaa kaliya iska bedelaa marka la joogo masculine-ka. Marka la joogo masculine-ka iska bedelaa oo den uu noqonaa. Den uu noqonaa. Inta kale feminine-kana waa didiisi, neutralkina waa oo dhexdhexaadka ahana waa das, pluralkana die. Marka la joogo unbestimta article-kana sidiisi waa oo pluralka bas ayuu aanan lahayn. Inta kale waa isku mid oo wuxuu noqonaa masculine-ka einen noqonaa, feminine-kana einen noqonaa, neutralkana einen noqonaa, pluralkana wax ma laha. Fadlan haddaad u baahan tahay videogan oo dhammaystiran, YouTube-ka ka fiirso, subscribe saar, share garee. Waan sii wadi doonaa. Okay. YouTube-ka shaashada saaran ka fiirso. YouTube-ka saaran TikTok ka fiirso. Sidoo kale waxaa jiro feebyo qaato accusative-ka. Feebyadaas ayaan soo dhigayaa. Feebyadaas waxay qaataan accusative-ka. Sidoo kale waxaa jira preposition qaata accusative-ka la shaqeeya. Okay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barashadii maanta aan baranay accusative-ka. Horena waxaan usoo baranay nominative-ka. Insha Allah waxaan baran doonaa mar kale dative-ka, kadibna hal video waxaan soo sameyn doonaa hal video oo isku mid ah oo aan ku badan doono artikalada nominative-ka, accusative-ka, dative-ka, genitive-ka iyo bistimta article iyo unbistimta article oo isku soo duubay oo aan soo qaabeyn doono
sida ugu fudud ku fahmi kartid waa isku dubaridkii, jarjaridii, qaabeyntii. waa anigoo ah Qujufaha, macallin, weriyo, freelance journalist and photographer and teacher. Freedom is fictive. Yeah, freedom. Okay, that's waa inoo mar dambe intaan ku kulmi doono barnaamij lamida barnaamijkan. Sidaas inabadiino. Freedom and justice.